صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. آداب النكاح وحان قيب الكتاب كنا الآداب الإسلامية كقادني آداب تجورك مركب وحوا دور حديث ولما يستر إن شاء الله تعالى. وعكمذا آداب روى الترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. haweeney kasta oo guursata iyada oon ogolaansho ka haysanin weligeeda guurni waa la isku qabsaday. suldaanka iyo qofka mas-uulka muslimiinta u ah ayaa u wareegaysa, isagaana guurinaya xilliga iyaga. aadaabta waxaa ka mid a meherka inaan qaali laga dhigin. aadaabta guurka wey, meherka inaan qaali laga dhigin. cumar bin al-khataab radia allahu canhu wa ardaah baa xilligiisii wuxuu yidhi war sadaaqa iyo meherka gabdhaha qaaliyaan laga dhigin. maxaa jira hadduu yahay gabadha wax lagu karaamaynayo meherku cabsi ilaahayna subxaana wa tacaala agtiisa wax loogu dhawaada yahay, nabiyullaahi maxamed baa samayn lahaa sala allahu calay wasalam. hadduu ahaan lahaa yani meher badan in gabadha la siiyo wax ilaahay loogu dhawaado ama sharaf dumarku ay leeyihiin hadday tahay, nebi maxamed baa sala allahu calay wasalam meher badan gabdhaha siin lahaa. rasuulkana inta la hayo sala allahu calay wasalam qofna lama hayo akthara min 12 awqiya, 12 waqiyadood oo dirhama wax ka badan in lagu guuriyo lama hayo. 12na waa qofkii ugu sarreeyay wey. 12ku marka waa meeqa? waqiyadu waa wax lagu miisaamo diinaar dahabka maahe, waa fidada, waana 40 halkii waqiyad waxay u dhigantaa 40 dirham. marka 12 xadiidka kale caaisha radia allahu canha baa waxay leedahay dumarkiisa kuwii ugu sarreeyay wuxuu siiyey 12 awqiyatan wa nash'a, 12 waqiyadood iyo wax yar. nashiga waa la weydiiyo waa haaf. marka halkii waqiyad waxay u dhigantaa 40 dirham. 40 lagu dhuftay 12 iyo bar waa 500 bay noqonaysaa. 40 haddii 12 lagu dhufto waa 480. haafkiina 20 weeye loo geeyey 500 oo dirham. 500 oo dirham intee dhantahay marka? wax weyn wax yar. diinaar ma, diinaarku waa dahab, isagaa dahaba kaasaa qaali ah, laakiin dirhamku waa fidadu qaali ma. sidaas daraaddeed intaasu sii waa wax yar oo $100 camal hadda taqriiban ah ama kaba sii yaraanaya. marka intaasuu bixiyey rasuulku sala allahu alay slm qofkii ugu sarreeyey. hadduu noqon lahaa marka wax dumar lagu karaameeyo ama wax ilaahay loogu dhawaado oo wax la buunbuuniyo oo la ammaano uu yahay, rasuulkaa bixin lahaa sala allahu calay wasalam. sidaas daraaddeed meherka yar ayaa habboon, isagaana barako badan. waxaa ka mid a rasuulku wuxuu ka hadlay sala allahu calay wasalam labada qof ee isguursanaya waa inay raalli kale yihiin, oo iyaga naftooda in laysu guuriyo ay raalli yihiin. waxaa ku sugan bukhaari iyo muslim xadiida abaa hurayra ana nabiya sal ll ly slam qaala wuxuu uhi laa tunkaxu layimu xataa tusta'mar walaa tunkaxu lbikru xataa tusta'dan. gabadha garoobka ah lama guurin karo ilaa la weydiiyo amar laga qaato. يعني أمر وين بحسيد
gabadha garoobka ii guuriya ha ii guurinina labadaa unbay mid maraysaa ee aamus laga yeeli maayo. amaa albikru iyada gabadha bikrada idan baa la weydiinayaa. idankaa hadday ogolaatana waa la guurin, hadday diidana waa laga dayn, hadday aamustana waa la guurin karaa. marka halkaas iyadu la dheertay moogiye gabadh iyo garoobba labaduba way u baahan yihiin in wax la weydiiyo, labadooduba waa lagama maarmaan in la warsado. ayib waxaa sugan rasuulka sala allahu alay wasalam waxaa ka mid oo kale aadaabta ikhtiyaar alrajuli الsaalix wain kaana faqiira. qofka gabadha loo guurin inuu yahay qof fiican. ninku gabadha nafteedina maxaa la yidhi fadfar bidaati diini taribad yadaak, iyadina diin baa lagu xidhay ogow. afarta arrimoodoo dumarka loo raaco waxaa la yidhi waxaa ka mid inay diin leeda, marka diintana ha lagu raacaa la yidhi. ninkiina isagana waa sidaas oo kale oo idaa jaa-akum man tardawna diina wa khuluqahu fazawijuuhu baa le. akhlaaqda iyo diinta laga fiirin. hadduu faqiir yahay ka war maalin ka mid ah rasuulka waxaa soo baray xadiis imaam bukhaari soo saaray an sahal ibnu sacd asaacidiy annahu mara rajulun calaa rasuuli llahi sal nin baa rasuulka soo maray sala allahu alay wasalam. nin ag fadhiyey baa wuxuu ku yidhi maa ra'yuka fii hada, bal ninkan ka warran, ninkan maxaad u aragtaa, ka warran ninkan suu kula yahay. wuxuu yidhi ninkani waa ashraafu lqowm, dadka ugu sharaf badan buu ku jiraa. wallaahi wuxuu ku habboon yahay ninkani hadduu gabadh soo doonana waa la siin, hadduu ergeeyana ergadiisa waa la aqbali. markaasuu rasuulku sala allahu alay slam intuu aamusay buu mid kalaa soo maray. markaasaa wuxuu ku yihi kii kale maa ra'yuka fii haada, ninkan ka warran. waa nin labaad. wuxuu yihi ninkaani haddii uu waa fuqaraa ilmuslimiin buu horta ku jira, dadka muslimiinta faqiiradooda ku jiraa. haddii uu gabadh doonana la siin maayo, in faqiir ayaa wax siin. haddii uu wax shafeeco qaadu dha arrintan maanta ku habsado oo ka ergeynayeen ergadiisa cidna yeeli mayso. rasuulku wuxuu ku yihi sala allahu calayh wasalam haada ninkan waa ninkii aan wax uu lahaa waxba la siin maayo faqiirka, haadaa khayru min mil-i lardi midla haada. ninkani wuxuu ka fiican yahay ninkaa kale, yacni inta muggiisa oo dhulka buuxisa in la eg oo kaas a kanaa ka fiican. sidaas ugu jawaab. waxaa ka mid a aadaabta qofka gabadha doonayaay, gabadha oo keligeeda yuuna la gelin qolka, albaabna yayna xidhanin. rasuulku wuxuu yihi sal lla alay slam laa yakhluwanna rajulu bimra'atin ilaa maca dii maxram. ninna yuusan qof dumara keligii qol la kelin ilaa inuu la joogo maxramooy. hadduu la galana shaydaankaa ku noqonaya, yaa nuqsadaxaynaya. waxaa ka mid a aadaabta gabadha markii la guursado ayaa naasyadeeda halkaa fooda ah in laga qabto, oo intuu qofku halkaasoo kale gacanta uga qabto kadibna uu ku aqriyo duco allahuma inii asaluka min khayriha wa khayri maa jabaltaha calayhi wa acuudu bika min shariha wa shari maa jabaltaha calayh. waxaa la yidhi haduu qofku gaadiid soo gato iyo daabad iyo wax iibsadana ducada ha ku aqriyo, haddii uu xaas soo guursadana ducada ha ku aqriyo allahuma inii asaluka min khayriha wa khayri maa jabaltaha calayh. ilaahay waxaan ku weydiisay gabadhan khayrkeeda iyo wixii aad ku abuurtay oo khayr ah. wa acuudu bika min shariha, waxaan kaa magangelayaa sharteeda iyo wixii aad ku abuurtay oo shar. ilaahay inuu qofku sidaa yidhaahdo yaa ka mid ah. rasuulku wuxuu yihi uma liya'khud binaasiyatiha, halkaa fooda intuu sidaa u qabto waliyadcu bilbarakati, marka barakaha ku ducaysta, ilaahu ii barakee ducada ha aqriyo. waxaa ka mid a aadaabta weliimo. weliimo waa maxay? waa in la sameeyo xaflad. xafladu waa wax fiican. bukhaariga muslim waxaa ku sugan min xadiidi anas ibni malik rasuulka sala allahu alay wasalam wuxuu arkay cabdiraxmaan ibnu cawf oo markii magaalada madiine la tegay ay wax ka muuqdaan wixii ragga guursaday iyo lagu yaqiinay raad baa soo galay. wuxuu ku uhi maa haada, waa may calaamadan kaa muuqataa? waa calaamadan lagu yaqiinay ragga guursada. wuxuu ku uhi yaa rasuul allah innii tasawajtu imra'atan, haweeney baan guursaday calaa wasni nawaatin min dahab, wax yar oo dahabaan ku guursaday, wax yar, wax weyn lama hayo, haddaa la yimid magaalada. qaala wuxuu ku uhi fabaaraka allahu laka, ilaahay ha kuu barakeeye, awlim walow bishaatin, waa inaad weliimo samayso. weliimadu waa sab waa inaad samayso. neef adhia baa allaha ka yeelay, wuxuun samee buu ku yidhi. marka inay sunno tahay baa la rabaa inaad tuso, haba yaraade. waxaa ku sugan bukhaariga muslim oo kale min xadiidi abaa hurayra annahu kaana yaquulu, rasuulku wuxuu odhan jiray sharu طacaami طacaamu lwaliimati
يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء waxa ugu shar badani waa طعaamka iyo cuntada sabta loo sameeyo oo dadka maalqabeenka kaliya loo yeedhayo masaakiintana loo diidaa yani rag is yaqaani waa iska faan camalo loo yeedhay nimankii boqorada ahaa iyo nimankii fulaan iyo raggaasa madaxdii iyo wasiiradii iyo fulaan iyo baa yimid waxaa albaabka loo taagan yahay masaakiintii ayaa albaabka loo taagan yahay laga celinaya halkaasoo iyaga dad loo dhigay waxa ugu shar badani waa taas weeyaan waman taraka dacwa qofkii intii marka loo yeedho oo martiqaad aroos haddii intii lagu yeedho aada diido faqad casa allaha warasuuluh ilaahay iyo rasuulka qofkaasi waa casiiba marka lama diidi karo waa waajib inaad weliimada ka jawaabto waxaa ka mid ugu dambeynta adaabta an yusalliya bizawjatihi ragcatayni awala maa yadkhulu biha markuu sidaa ninku usoo galood gurigiisa u timaadaan oo gabadha aada intaad fooda sidaa u qabato adkaarta aada aqrido kadibna 2 ragcadood oo sunnaa tukada hadiya iyaduba hala wada tukado waa sunne in taabici baa wuxuu yidhi nafara min asxaabi rasuulillaahi oo kamid abu mascuud iyo abu dhar iyo xudayfa kadib waxay bareen markaad reerkaaga u gasho 2 ragcadood oo sunnaa tukada kadibna khayrka ilaahay weydiiso shartana ka magan gal thumma sha'nuka wa sha'nu ahli marka waadiya reerkaaga waxaydin dhiman ma jiro way marka sidaas ula sii dardaarmeen marka waxaa kamid ah adaabta iyo sunnada in la fuliyo dadku